waxaan ballan qaadnay in 2020ka dalka uu galo qof iyo cod inuu galo waxa caado ahaan jirtay waqtiyada xilku way soo dhow yihiin oo doorashadu dhowdahay in markaas la ordo oo qabanqaabo la galo kadibna wax bay farax ka baxaan laakiin annagoo hal sano iyo 4 bilood iyo 5 bilood joogna yaan waxaan go'aan ku qaadanay in aan ka howlgalno qaabkii iyo habkii doorashooyinka loo gali lahaa 2020ka arrintaani waxay ku timid midnimo iyo leadership hoggaan sax ah oo ka yimid dhanka dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa sida aan kulligeen isugu xilqaanay oo aan uga gaarnay go'aan inaan bilowno hadda oo aan ka shaqeyno sidii annagu masiirka ummadda Soomaaliyeed aysan gacanteena uga bixi lahayn oo aan u bilowno sidii aan ummadda Soomaaliyeed uga ballan qaadnay in uu noqdo electionka 2020ka mid qof walba oo Soomaaliyeed uu ka qayb qaato oo hanaan hufan oo transparency ah uu dhaco taasna waxaa muuqata inaan bilowgeedii aan galnay waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo nala qaatay inkastoo aan muddo ka soo shaqeynay waan u saarnay guddiyo farsamo ay soo dhameeyeen guddiyadii farsamo ay soo dhameeyeen qaabkii iyo sidii electionkaas u dhici lahaa principle asla qaadanay